kulanti wanaagsan daawadayaal kuna soo dhawaada Dhuumoodle TV waxaan warbixintan ku eegi doonaa 12 Agoosto maalinta calanka Soomaaliyeed 12 Agoosto waxaa sanad kasta la dabaaldegaa maalinta calanka Soomaaliyeed. Calanka Soomaaliyeed waa laba midab oo kala ah buluug iyo cadaan. waxaa la curiyay sanadkii 1954 waxaana hindisay محمد عوال الليبان نحرستي جنة الله سيه علامات عد يكلر بلوغ وقصاء وهر ريسان ومدب كوبكا كوبية علنك الصوماليات علامات عد أي شنجيس وككلا ترجمية شنطة الصوماليات وكلا كونفور وقوي NFD كلنك الشهاد يجيبوتي وهاتن دل مدح بنان دوني أقوانسان داي waxaa ku midoobay Jamhuuriyaddii Soomaaliya ee calankaasi loo aasaasay 1960kii. Koonfur iyo Waqooyi Soomaaliya oo ku bilaabatay dimuqraadiyad ayaa hal mar cagta saartay xaalad milatari kadib markii milatarigu Afgambi kula wareegeen xukunkii rayidka ahaa. 20 sano kadib waxaa go'ay gobolladii Waqooyi ee Soomaaliya waxaana guud ahaanba burburtay Jamhuuriyaddii Soomaaliya. gobolladii Waqooyi waa go'een waxaana haatan loo yaqaanaa Jamhuuriyadda iskeed madax bannaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland. haatan halka calankaasi ka shaqeeya waa koonfurta oo kaliya. koonfurta waxaa ka jira maamul goboleedyo mid kasta calan u gaar ah leeyahay, waxaana calankan la soo bixiyaa oo kaliya waa calanka buluugga ah maalmaha xorriyadda iyo sidoo kale maalinta calanka Soomaaliyeed oo ah 12 Agoosto. inta kale waxaa la wataa calamada dawlad goboleedyada oo meel kasta ka banaya sida goobaha ganacsiga, gawaarida iyo noocyada kala duwan ee dadku ay isticmaalaan oo loo isticmaalo calamada dawlad goboleedyada ahna kuwa si caadi ah uga shaqeeya guud ahaan koonfurta Soomaaliya. lagu shiray inta lagu shiray beriba la shira badana shirara wax tarin badana hakana waa beel sanadka beel badana Radio